إيشك واحد ميسانيد باشقين لا شلي بدر كيسي عبد خساره ناقته عندها يسي نكن واويل ولا الكيا إنترنت كوع عيني سكوبر برسنيسي عندها يهبل الجروح لا عندها أنا سينها نينك ودي إنه قرح ديلا that's why قرح ديلا مركي أفراد مركي شنات وجلها وإنك أنا عكاي كوما لو ما سدح ما وباهي أقول يكرباش قبلها صومالي نحن قلت لنا مستحيل ماشي قردام قرعة أنا أمر جسي Welcome back to another video عصب. Please subscribe. Please subscribe. Huh? Huh? Subscribe. Please Subscribe. Please السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا كسو دوادا معلمو كان أصحابتا عصبان سو دوينا كو هرو جوغنا واتكو ماسنتين لجوغي تانكينا إن أصحابتا إن حصو أركتان مستحلية عونا نقان دمانتينا قفكو يهي إيو رنتي بلشدة وحا معناه قف والبو عانا بلشدة مقعكو له طبعا بلشدة بوزيشن أي أتاقيها إن مستحلية wuxuu ilaa xalay habeen hore aan dhaho shalay saaka hadda video aan duway ah wuxuu dul taagan yahay ninka la magaciisa qurux ku dhiilay iyo Jamaal Jacaylo waxa ognahay Jamaal Jacaylo qisadii uu ka soo sheekeeyay inay saameyn yeelatay nin walba qaab ayuu macnaha u turjuntay anyway qofka asaga afkiisa wixii laga hayo boort lagu xukumay inta badan asaga afkiisa ma ka maqlin qofka hadda uu mustaxaliye wadado inta la midka ah ee wadadaan dabcan wax fiicanna ma ahayn arrinta ayda inay saan u buuniyaan oo qofka asaga ah in badan xanuusnaa qaabka waxa uu xanuusnaado oo sheegay noloshiisa inay mugdi ku jirtay Mr. Jacaylo Jamaal Jacaylo ugu dambeyn mugdi asaga ka soo baxay in maanta lagu qoslo lagu shactreeyo oo la dhaho duliya tahay adaa gud isku riday adaa saa isyeelay horta wax fiican ma ahayn tii ayad xag naga soo dhig waa laga soo gudbay mustaxaliye inta soo fadhiistay ayaa wuxuu taagan yahay qurux ku dhiil naftiisa loser waay markuu saa asliya qurux ku loser waay waxa ka maqan wuxuu saa u leeyahay waxay tahay qurux ku dhiil inta badan ognahay waxa lagu xameyn jiray mariish ay saaxiib yihiin mariish ay wada socdaan Marish Beauty asaga waa mardow arooskooda dhacaayo waa isku nuurayaan ilaa haddana dee asaga intuu soo fadhiistay sida Jamaal Jacaylo camal muu dhihin Marish waan jeclahay laakiin afkiisa waxaan ka haynaa inuu dhahay Marish waa gabar Soomaaliyeed walaashii ah waa gabar aan wada shaqeyno waa gabar runtii ixtiraam iga mudan macnaha ceeb ma aha dadka inay wada shaqeeyaan sida horta laakiin in la isku qabto ay ceeb ah inta badan waa arkay Soomaalideena لو قف عماد السكوار كا حليه ويسعليه نبدأ على السكوار عام تأيده وح عادة أو نبانتين عادة أو وح عصم أهان إن وحيلا وحيتا لقنا هان ويل يجبر بورت إني صاحب نقدر تاسو واحد بكينا أنا كمؤبرنا ويل يجبر صاحب نقدر أو صاحب كرا أو شخين كرا مركا لكن هذا حنجونا حنكون جرنا لو كنا تاني لو كنا تدحل أنا أقول من أفر بلاد وحكي رأوا من أنا قياس أنا أفر بلاد مركا waxaan ilaa horta waa la hormaray adduunka hore ma ahan haddii la hormarnay macnaheedu ma aha in dhaqankii diinta laga tagay laakiin meesha aan joognay 20 sano ka hor maanta ma joogno adduunka maalin soo cusub kusoo kordhay marka waxaan ilaa horta dadka wada shaqayn jiray ahaayeen mustaxaliyan waxaan ilaa aniyo dib isku laabo waxaan kaloo maqlay mustaxaliya intaan videogiis u gudagelay ka hor in hadda ka hor qurux ku dhiile iyo mariish uu tagay uu dhahay walaalayo nin Soomaalida walkiin ahay caawiya garab u weydistay oo shaqeyn u weydistay laakiin ay u diideen odayga markii ciilka asaga ahaa wuxuu ilorta uu qabaa wali ma cafinin that's why meeshu istaagay qurux ku dhiilay mariish qurux ku dhiil loser way qurux ku dhiilay macnaha uu ku soo celin inta badan waa nin xanaaqsan marka waxaan ilaa nin xanaaqsan hadalkiisa qaadanina Soomaalidana hadalkiisa qaadanina hadhigeysana bal videogiisa ugu horeeyo iyo mustaxaliye arinta qurux ku dhiilay mariish Jamaal Jacaylo waxa uu ka dhahay إيشك واحد ميسانيد باشقين لا شلي بدر كيسي عبد خساره ناقته عندها يسي نكن واويل ولا الكيا إنترنت كوع عيني سكوبر برسنيسي عندها يهبل الجروح لا عندها وأكيد يمتكله ولا بلوزر واحد
okay ragga waxay aaminsan yihiin jacayl waxaan inuu shaqeeyo ninka naag buu saaxiib la ahaa naagtii baa sooy ku dhahday wuxuu isagu maxaa la dhihi jiray aaminsanaa way shaqe Mr. Bumbum thank you Mr. Bumbum okay caadi yaa loo daalan yahay meesha fiiri haddii jacaylkan aad sheegaysa uu sax yahay haddii naagtan aad rabtay noloshaada oo dhan ahayd maxay kaaga tagtay micnaheedu waxay tahay naaguhu wax ay fahansan yihiin baa jira oo aydan fahansaneen marka ooyaaye iyo bumbum Mr. Bumbum way soo ag fadhiisteen waa la isla ooynayaa mid horta uu murugsan u foorara horta waa saaraan u fahmay Mr. Bumbum wuxuu ku wada qorx ku dhiilay marka ooyaan wuxuu ku wada jacayl horta xad ilaahaniyo bal mastaxaliyo ninka hadda shal haduu ku dhahay walaalow kul shaqeyn karo in hadda ciil ay u qabto wax fiican ma ahan taa ayada wax xaqiiq aan soo ogaaday in qurux ku dhiigle iyo mariish ay diiday in la shaqeeyo ninka la magaciisa mastaxaliya waa 2 sano bar 3 sano ka hor saamqlay ay wuxuu ka codsaday inay wada shaqeyn ay yeelan karaan marka bariga asagan runtii gabadha la magaceeda Sucaad oo hadda guursto YouTube social media dhinac iska dhigtay ayuu ka soo dhacay xageeda dabcan way isku xirnaayeen saddexdooda ugu dambeyn waxay dhahay walaalo ma shaqeyn karto markaas wuxuu aaminsan yahay ninka u diiday inuu qurux u dhiilaa that's why qurux u dhiila markii afraad markii shanaad uu galay waa ninkan arkay 1 ma 2 ma 3 ma 4 ma marka waxaan leeyahay qofka hadii uu ku dhahay ma kul shaqeyn kari macnaheedu ma aha inaan nacdid waa nici kartaa oo macnaha waa dhihi kartaa qofka ma kul shaqeynaa ku dhahay laakiin inaa mar walba caysid aflagaadaysid wuxuusan ahayn aad ku sheegtid ma ogda qurux in mustaqbal lahu qurux u dhiila lahu qofka macnaha Soomaali la taqaan laakiin in macnaha waxa asaga ahayn dus ay ka saartid ay ka dhigtid loser inuu yahay horta cadeelaha taayada ninkan odayg mustaxaliyo ku degdegay dad wana comment u soo qorayna maqlay oo qurux ku taageerayna dhahan qurux ku wada macnaha qurux ku taageerayna hadalada mustaxaliyo dhahay taas waxa la aan ka wanto nafta wax fiican ma waayo ninkii qurux waxa laga bari inuu xanaaqo oo neero rag inta joogan wax ka sax mari karo taasna dagaalkii meesha ka imaan mas'uulka ah mustaxaliye oo aan leeyahay asaga ayaa keenay marka taa ayada meel aan dhigaa tan qurux ku dhiilay iyo ijmar jacaylo gabdhahan uu leeyahay way daba socdeen horta rag baa la dhashay walaalaha Nairobi kula joogo marka am Nairobi kula joogo Afrika kula joogo meesha kula joogaan waa lagu imaan karaa madaxa laga qaraac karaa wax weyn ma marka aan dhilaaniyo bal gabdhahan naftooda ka xisho haddii rag ka xishoomaysa gabdhaha ka xishoomaysa oo adi as qaban waysay mustaxaliyo waxaan dhilaaniyo bal gabdhahan dad baa dhalay dad baa dhasheen dad baa ilaashanay sida adi lagu dhalay ayaa loo dhalay in maanta aad gabar Soomaaliyeed oo nin waxba ka dhaxeen aad ku qabatid nafteeda hada sharaf kuma aha dadka gabdhaha dhalan runtii sharaf uma aha wixii meesha ka imaadeen mas'uulka ah adiga oo runtii daba dhigtay adiga oo ku tilmaamay gabdhihii waxaysan ahayn shaati ee leena gabdhihii u gelinaysan kaas u fiiris waxa leedahay nina waxa ku tilmaantay loser which means waa nin oo guul dareystay which means gabadha ninkaas oo loser dhigtay waa qiyaanoley markaas u fiirs magac oo eelahan buu gabadha dusha ka saaraya marka aan la mustaxaliye arintiisa wuxuu u baahan yahay ul iyo karbaash gabdhaha Soomaaliyeed waxaan qultanaynaa mustaxaliye meesha ku ardaan ku qaraaca ana amrigasi wixii ka imaadana mas'uulka saad videogaas in la wadaag rabay channel kana subscribe ina saara kun iyo ko jeerna soo dhawaada